قويس كان صومالي وقويس ملقي قليو درس كيسي إلهي دad aafaysan buu ka dhigay oo gaalaasa lagu xiray xaga nabad baa ka cilin baxay ku banaan inta tabartooda waa taariikh al-bashid buu akhriya waa qoyska ugu halgan badan fi taariikh 12 qarni bay Soomaalidu dagaalamaysa 12 qarni weligood hal qarni ma dhamaan iyagu jihaadin fi taariikh taariikh hal akhriyo ummadihi kale wadan islaan ahaan jiray gaaladu qabsatay way isdiifaanba Soomaalidu waa qoys la kado ilaa minkan taagan way qoys la kado way Andalus laga sameeyay xagee ku dambeysay sida Andalus loo qabsaday ayaa loo qabsaday bariga Afrika oo dhan Soomaaliya loo qabsaday awood lagu bixiyay annagu Afrikaan dagaalamayna Portugiis nagu soo duulay Ahmed Gure mujaahidka caalamka ayaa dilay qarniga 10aad halgami jiray Portugiis baa markuu Axmaara samriyay oo hilibka cayrin baray oo maqala ugu tagay oo aksum ka saaray oo uu rabo inuu badda ku daro Faransiis baa soo duulay reer Yurub baa jabiyay mar walboon dariska xun aan iska qaadno waxaana jabiya dariska aan isayna tulki oo tulka waaweyn laakiin anagu tol aan baan nahay labada goor hal mar baa waa Uthmaani noo soo gurmadeen 900 oo ciidan noo soo direen kadibna biilkoodi ma kan tabar weyn la fuqara iska nayaan iska noqda markay iska noqdeen hoona la baabiyi taariikhda dib u akhriya طيب ولا مصاريف ان ير نو سو dirtaan aan eednayba dib ma laha muhiimadu waxa weeyo qoys 12 kaas 14 ka qarni halgamaya iyaga laga helaa waligood awood in loo sheegto ma uma hoggaansamaan cadow uma hoggaansamaan mu'arrixiinta carabeed baa ka hadlay amiir shakiib arsalaan baa u dambeeyay wuxuu waa niman madmadow dhuuban oo dhaadheer oo on murqa waaweyn lahayn wuxuu laakinahum ashidaa'ul ba'si a'izzabu هو مري صومالي ومري انتم مري بماسو ادو عاي وحول waa meel quran oo wasaq badan Soomaali aad buu amaar wuxuu waa niman madmadow dhuuban oo san dhuuban oo mooday inay carab ku jirto laakiin xagga dadnimada wuxuu laakinahum ashidaa'ul ba'si a'izzabu al-imam qalqashanti kitaabkiisa subh al-aasha oo qarniga 8aad Soomaalidu ka waramaya wuxuu waa dadka bini aadamkii ku nool gobolka dadka u aqli badan way buu waa adkiya buu gormu ka waramaya wuxuu ka waramaya 700 sano mid ka waramaya 700 sano ka hor buulay Soomaalidu waa dad jinsi kala oo ka aqli badan basharkii la nooliyeen ma taymsa ila aminka sidii ma taymsa ma Afrikaanku waxay idin yaqaanaan Yuhuudda Afrika idin yaqaanaan xagga xisaabta iyo aqli badnida imtixaanka waxaad isku xukumi laadihiin u heshiin laadin waa aqliga faraha badan ee zaidka ah wadi faanteen baan u malay maxaasawle waxa la rabaa dadku inta li soo aqli badan iyo shacab la hogaamiyo inay noqdaan ardayga Soomaaliga ka yar 20 jirka iyo odayga 8 jirka isku waxay dareemahayaan way masri kartid indhaha ma qaban kartid adeer waa ku fahmi ku leeyahay inaad garateen baan ummadu bini aadamka dagaalada iyo kuwa islaamka kale walaalaheedayo waxay ku rooyihiin dabaqa saro oo wax hogaamisa oo aqli badan iyo waxay leeyihiin allow saalo waxa la yiri indhii waa kuma indhii waa riyacad baa la yiri arigu markuu suudiyaha hogaamiyo ariga meeshu maraayo iduu waa iska daba soo waa raciyad shacab weey riyaha hogaamiyo idinku waxa weey kulligood maxaa tiin riyad wada noqotay aafadaas hortayda haysato wad ku dhibantiin marka qoomkan waa qoom inta soo halgamaya tabar ba halka dhigtay markay gaalaysiin xariis daraa in lagu qad qaado waa aqal xumiye diin la'aan wax yar baa idhima waqtigan waa dheeraaday habeen damban gabagabeyn insha Allah ta'ala iyo wixii su'aalaad qabtaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh